بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بجميع الطلاب في معهد جراند أونلاين. أنا معلم اللغة العربية في معهد جراند أونلاين أكاديمي. نأخذ فصولا جديدة لتعلم اللغة العربية عبر الإنترنت، وشاركونا آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو. عنوان هذا الدرس الذي نتحدثه اليوم يتحدث عن معاني الحروف في اللغة العربية. halkan waa macahad Grand Online Academy waxaan macallinka bixinaya kooraska luqadda Carabiga casharkan qaadana waa cashar aad u fudud waxa la yiraahdaa ciwaankiisa macaani al-huruf macnayaasha xurufta luqadda Carabiga af Soomaaligu wuxuu leeyahay xuruf sida iyo waxa weeyo ma ay qabataa caadigeeda laba kelmadood bay isku xidhaa iyo waxyaalo fara badan kale iyo waxa kamida waxyaalaha soo kale waxa weeye xurufta waxa weeyaan isku xidha luqadda Carabiga iyo macnayaashooda aynu baran doonaa insha Allah waa xurufta luqadda Carabiga iyo xaraf kasta buu wuxuu qabto way macaani al-huruf waxa weeyaan macnaha xurufta في البداية نقرأ باللغة العربية من أذهب من البيت إلى أذهب إلى العمل في وحرف من حروف اللغة العربية النقود في الحقيبة النقود داخل الحقيبة خلف يقف خلف السيارة أمام يقف أمام السيارة جنب تقف جنب البيت واقع عشتك إنه حويا معاني الحروف حروف اللغة العربية isku xidha bal macnayaashooda barana waxaan ugu horeysiinaa min waxa loo isticmaalaa marka meel ay bilaawaysid marka waxaan ka tagay guriga waxaan tagay shaqada waxaan dhahabtu min xaqi ka bilowmatay guriga ka tagay min albayt wa bidayatu makan wa bilowga beeshad ka bilowday ayaa mid u isticmaalaysa tusaalaheeda adhabu waxa ka tagay amba ka tagaya min albayt guriga ka tagaya min waa maxay wa xaraf macnaheedu waa maxay waa meel ay wax ka bilowmeen min ومال أضح كبيرة مثلا بوجا واحد كبيرة حاشية كوبات إلى دماتك بدأت قراءة الكتاب من الصفحة الأولى من وحقي والرئيسي من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة وهي إلى ومحي إلى معناه ومحي وانتهاء غاية ومال يكون دمات مثلا واحد كتير جوريا وحننتهي من شقada tagay marka leedahay ila ma isticmaalaysaa tusaaleed waa maxay adhabu waxaan tagayaa ila al-amal shaqadan tagayaa halka shaqada waa meesha ku socota halka ku dhamaatay maad isticmaalaysaa ila waa xaraf kamida xurufta luqadda Carabiga waa yahay fi waxa faa'iideysaa wax ku dhex jira marka leedahay lacagteedii waxay ku dhex jirtaa shadada marka lacagteeda soo saatid shadada aad furtay marka leeyahay lacagtii wax ku dhex jirtaa shadada lacagta waxay ku dhex jirtaa shadada marka shadada dhexdeeda maxaa ku jirta lacagtii marka waa maxay النقود lacagtii في الحقيبة waxay ku dhex jirtaa shadada lacagtii waxay ku dhex jirtaa shadada في marka waa maxay wax ku dhex jiray tilmaamta marka leedahay mobilku wax ku dhex jira gaariga maxaa oranaysaa الهاتف في السيارة gaarigu ku dhex jira في wax ku dhex jiray tilmaamta way ta ku xigta khalfa maxay waa halka dambe amba gadaal qof sidoo garanayo yaqifu wuxuu taagan yahay qofkaasi khalfa sayaarati gaariga dabadiisu taagan yahay gaariga ayuu daba taagan yahay khalfa waa maxay waa halka dambe amba gadaal qof sidoo garanayo way hay ka ku xiga amaama waa halka hore yaqifu wuxuu taagan yahay amaama halka hore as-siyaarati gaariga halkiisa hore ayuu taagay amaam macnaheedu waa maxay waa halka hore kelmadda ugu dambaysa waa maxay waa janb waa maxay waa dhinaca taqifu waxay istaagtay janb al-bayt taqifu waxay taagan tahay janb al-bayt guriga dhinaciisa taagan tahay marka xuruftan maxay faa'iideysaa waa xuruf marka hadlaysid luqadda Carabiga amba aad wax sheeg ka caawinaysa wax fara badan marka leedahay waxaan ka bilaabay xaashida koobaad buuga ila xaashida ugu dambaysta labadan ba isticmaalaysaa بدأت من الصفحة الأولى إلى ما استعمالها هل تكون استاجتي إلى الصفحة الأخيرة تاسو بلو بشيء تنحلها كل أمات ذهبت وحكيت من البيت قرية
gurigaan ka tegey dahabtu waxaan tegey ilaa alcamali shaqadaan tegey gurigaan ka bilaabay socodka min ilaana halkii aan ku dhamaysay socodka في معيت المامتا wax ku dhex jira النقود lacagtu في الحقيبة شنطة ay ku dhex jirtaa خلف يقف wuxuu taagan yahay خلف السيارة gaariga dabadiisa أمام وهلك hore يقف wuxuu taagan yahay أمام السيارة gaariga hortiisa جنب ودنعة تقف waxay taagan tahay جنب البيت guriga dhinaciisa marka kelmadaha basiidka marka luqada carabiga aad hadlaysid oo kale waan u isticmaashaa insha Allah wax ka caawinaysa hadalka luqada carabiga kelmadda aad macnayo waa min waxa weeye meel wax laga bilaabo bilowga marka wax ka bilaawaysid ila waa intihaa qaaya meel wax ku dhamaatay fi wax ku dhex jiray tilmaamta khalfa waa maxay khalfana waxay tilmaamtaa halka dambe أمام وحوي هلك هره جنب ودنعة وحنا نقول سكرنا كسو كردين كرنا على كلمة على يبقى هلك نقول هذا إنه قرأ كلمة على معيت المامتة وضشة مركز الله هاي موبلك وحدولية لاميسكا ما عنده استعمال إسا واحد ورا إسا الهاتف على الطاولة وحدول يلا ميسكا markay raado qalinka wuxuu yaala gacanteed macna isticmaalaya waxa uu القلم على كفي wuxuu yaala gacanteeda amba القلم على يدي wuxuu yaala gacanteeda على macna isticmaalana wuxuu yaala insha Allah meel marka xuruufta luqada carabiga insha Allah inta ugu muhiimsan waa intaas ee kelmadda على inuu soo kordhay على ana waa baxay markuu wuxuu yaala mesela mobil wuxuu yaala ميسكا وحواني الهاتف على الطاولة مركا إن شاء الله أرتدي قارئة أنت أصلا مهم سن حروفها بكلماتها اللغة العربية مركا الله حضليو اسكت برشار هذا الشيء وحسوس شيء كتير حكوا سوقرتها كومنت حكوا سوقر إن شاء الله وحكوا أي لا قول كذا تقول تكتب له حكوا أي لا وحيارا صور شيء إن شاء الله حكمن تيجي نقول سوى ذاك إن شاء الله نبراتي إنكم تيجي نقول سوى ذاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا معهد جراند أونلاين أكاديمي في اللغة العربية. أنا معلم اللغة العربية في معهد جراند أونلاين أكاديمي اسمه عمر عبد عمر. نأخذ فصولا جديدة لتعليم اللغة العربية عبر الإنترنت وشاركونا آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو.